السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها مستقبل كجمهورية السوماليلاند waxaan shirkayga jirayd maanta uu daaran yahay inaan bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland uga warramo xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland ka madaxweyne mustaqbal ahaan markii aan u kurgalay xaaladda abaareed ee aan u qabtay xaaladda ka jirta gobolada Togdheer iyo Sanaag iyo Sool xaaladda abaar ee ka jirta waxaan soo maray gobolada Togdheer hawdkeeda ilaa barigeeda ayaan tagay waxaan soo arkay xaaladda ka jirta abaarta oo ah xaalad aad iyo aad u adag waxaan tagay gobolka Sool iyadana sidoo kale waxa ka jirta xaalad aad iyo aad u adag oo abaara socdaalkaygu wuxuu ahaa socdaal doona u kurgalka abaaraha ka jira gobolada bariga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan tagay gobolada Sool baan tagay gobolka Sool oo isagana aan soo maray xaalad abaar oo aad iyo aad u liidata baa ka jirta saddexda gobol ee gobolka Togdheer iyo gobolka Sool iyo Sanaag safarkayga wuxuu ahaa safar aan u kurgalayay soona ogaanaya xaaladaasi waxaan tagay meelaha ay nuucdu tahay ee loo soo hayaamay hadday tahay gobolka Togdheer sida Coodal oo kale sida Baladhiig oo kale Shashacad oo kale Balle Calal oo kale meelahaas oo meelaha lagu soo hayaamay waxay meesha ugu ilaa iyo gaadlayaal ilaa iyo Taalabuur ilaa Baladhiig ilaa Qorlugud aagaasoo dhan waa lagu soo hayaamay miyigeeda lagaga soo hayaamay dadkaasi waxay ka soo hayaameen gobolada Sanaag ilaa Sool bay ka soo hayaameen ilaa iyo Itoobiya xuduudda ayay ka soo hayaameen dadkaasi wadada aad iyo aad u liita gobolada bariga waxaa inta badan yihiin gobolada xagga dhaqaalaha xoogan ay haysan inay tahay xoolo inta badan dadkii aad iyo aad xooga waxaysan haysan wax la yiraahdo baad iyo biyo wax la yiraahdo haba yaraatee ma haystaan marba booyada lala gaaraa booyahaasi waa xumad jibin weeyaan waa booyada aan ku filnayn baahida meesha ka jirta waxa meesha ka jira xoolihii oo baqbaqtiyay iyadana caafimaad darro aad iyo aad u liidata dadkii oo xagga gargaarka aad iyo aad u liita dadkii gargaari lahaa caawin lahaa ee ku shaqada lahaa goboladaas waa gobol aad iyo aad u liita xoolihii waxaad arkaysaa dad reer miyiga oo lahaa dad dhowr boqol oo neef nin lahaa ayaad arkaysaa afartan neef ka sii jeeda oo afartankaasna wax neef mac ama neef la iibsan karaya uusan ku jirin oo mid walba weydka u yahay waxaad arkaysaa xoolo geeli baad arkaysaa oo fadhiistay aan kici karaynin abaartii iyo biyo la'aantii iyo baad la'aan darteed ilaa hadda xoolahaasi wax qorshe ah looma samaynin xukuumaddu garwadeenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraaye way dadaashay way soo martay xaaladaha way soo indhaysay hase ahaatee ilaa hadda waxa la tacaalayaa dadkii dhimashadii dadka ayaa la ilaalinayaa waxa la tacaalayaa xaaladda dadkii waa lala tacaalayaa ilaa hadda qorshaha laguma darin xoolahaasi gobolada Togdheer Sool Sanaag jamhuuriyadda Soomaaliland xoolaha ka dhoofa boqolkiiba 80 waxay ka yimaadaan saddexda gobol bay ka yimaadaan saddexda gobolna xoolahoodii maanta waxaynu oran karaynaa boqolkiiba 60 way baxeen oo way dhamaadeen aad iyo aad baan ka madaxweyne mustaqbal ahaan markaan meeshaasi tagay waxaan la soo kulmay duruufo aad iyo aad adag baan la soo kulmay waan damiirka way siin kari waayay in aan halkaanoo jooga aan warbixin soo diro calool xumo darteed waxay u baahan yihiin dadkaasi loo gurmaday u baahan yihiin dadkaasi in laga warhayo u baahan yihiin dadkaasi waxay u baahan yihiin biyo joogtaa bay u baahan yihiin dadkaasi baad bay u baahan yihiin xoolihii iyaga waxay u baahan in qorshe loo sameeyo waxaad arkaysaa wadaad maraysaa dabeetana dadkii wax haystay xoolaha haystay nimcada haystay ayaa wadada hareeraheeda fadhiyaan dabeetana waxay maraysaa inay sidii dadkii qaxoontiyada soo qixi jiray ee dawarsan jiray oo kale inay iyaguna dawarsadaan oo ay xaaladoodu aad arkayso ku leeyahay war biyana siiya ama waxaan afka gelina noo dhiiba war ciyaalkii baa naga babaqtiya xaaladda iyadoo ma hagaagsana war biyo ma noo sitaan ka madaxweyne mustaqbal ahaan dhowr booyadood oo biyo aan ugu talagalay goobaha aadka ayaan geeyay hase ahaatee ma ahan mid maanta la oran karayo biyo intaas ayaa ku filan waxay u baahan yihiin biyo fara badan bay dadka u baahan yihiin marka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku kala dhaqan caalamka iyo kuwa dalka ku dhaqan waxaan leeyahay war maanta jeebka hala furo
bulshada ha loo gargaaro xoolihii iyagana ha laga wardoono xoolahana aad iyo aad bay xaaladoodu xun tahay marka bulshada waxaan ku dhiirigelinayaa inay fadhiga ka kacaan maanta in loo gurmado dadkooda si loo badbaadiyo nafta xoolaha iyo dadkaba aad iyo aad baad u mahadsan